haddaan nahay dhalinyartii gobolka Afdheer waxaan totally ba aan qaadacnay xisbigii EPRDF ee haddana u diga rogtay ama u shaati bedeshay BB kaasoo raba inuu 5 sano soo socotay wixii la midaba uu nasii hogaamiyo sababtoo ah xisbigii waa kii oo magacii bedeshay horeyna u soo tirin jiray haddana waxa weeyaan talada haya hadda uu magacii u bedeshay iyo waqtigii hore uu sii joogay bay magac kale u watayba wax isbedela ama wax isdhaamida oo gobolkaas bulshada ku nool Afdheer yani uu u sameeyay inaba ha yaraatee ma jirno marka xitaa asagiiba magaca bedeshay oo magacii hore iskaga diga rogtay annagii markii gobolkayd halka ku noolay shacabka halka ku noolaaba meel uu asagii ka diga rogtay oo magaciisa ka bedeshay in yani wax isbedela annagii aan weyno oo sidii uuna sii ahano arrin qabata ma aha sida ay daraadda dhalinyarta gobolka Afdheer waxay isku wada raaceen inay qaadacaan xisbigan talada haya BB. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك، رمضان كريم. دمان مد الصوماليين ملك صديق داونيسان وين السلام يا سلام قالية إن سود وهذا هذه أدبان إذن سلام يا إذن كأسكودوبن إن سال سعتان مانتا وجمعة حانقلي إن طبعا كده بش بركة سنة رمضان وطبانكي دحا دنبي دافكا وحان إلهي سبحانه وتعالى ويدي سننا لمانتين ينو دنبي داف أسيو إلهينا نغادي يكوي لو دنبي دافي سيدا الله سعطان لمانتين با مادام كجر طبانكي دحا بيشا بركيسان وحلو باهن يهي إنا خير كسكو دردارنا وعد كستا sida uu uga faa'iideysan lahaa bishan barakeysan oo falkeeda galo cidii aan hore uga faa'iideysan inay ka faa'iideysato intii ka faa'iideysanaysan inay sii laba jibaarto dadaalkeedii marka la soo dhawaada saaxiibayaal oo walaalkeen Nuur Yuusuf Axmed Nuur Wadani ku soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan iyo waji furan ku soo dhawaada meel in laga jecel yahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa mar labaad maanta waa Jimco Mubaarak baan Ilaahay dhamaantiin iyo Ramadaan Kariim hadduu alla idmo waxaan halkan usoo fadhiistay insha Allah inaan hal arrin gorfeyno halka arrin oo maanta aan ku gorfeyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo dhalinyarta gobolka Afdheer oo jigjiga kaga dhex dhawaaqday inay qaadaan xisbiga BB ama barwaaqo barnaamijkaas ayaan insha Allah gorfeyn doonaa ugu horeyn soo dhawaada waxaan idinka codsanayaa haddii aad channelka ku cusub tahay inaad subscribe saarto like saarto videogan si share gareyso wixii fikrada ama tala aad commentiga noogu reebto sida aad la wada socoteen shalay waxay dhalinyarta gobolka Afdheer oo say macnaha isku sheegeen haldoorka gobolka Afdheer dhalinyarta haldoorka gobolka Afdheer ay soo saareen qaraar ama magaranaysaa ay warbixin ay ku soo sheegeen inay qaadeen xisbiga BB ee talada haya deegaanka Soomaalida marka koobaad aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan korfeyn doonaa laba qodob oo ah qodobka koobaad horta waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo isbedel doonaysa ama isbedel gobolka iyo ummadda degan ee dhibaataysan ee xaaladda adag ku nool cid isbedel siday u gaari lahayd ama nolosha imaanta ku jiraan ee magaranaysaa aad u liidata ee horumar la'aanta cid magaranaysaa ka dhiidida aadan u soo dhaweynaynaa tawa taasminta kaleeto waxa weeyaan dhalinyarta gobolka Afdheer waxaan leeyahay marka koobaad ma noqon doona kii 2019 ee kacdoonka dhalinyarta banaanbaxyadii badnaa isbedel aan maalinkaas keeni weynay dhalinyarta haddaan nahay gobolka Afdheer ma la dhihi karaa maanta waa fursad labaad oo bulshada gobolka Afdheer laba mid loogu soo hooyi karo horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cid kasta oo interest gareynaysa ama magaranaysa jecel oo ka tanqanaysa shacabka tabaalaysan shacabka dhibaatada aragtay ku nool shacabka oomanaha arkay ku nool shacabka jid la'aanta arkay ku nool cid ka tanqanaysa waan soo dhaweynaynaa midda kaleeto waxaan aad iyo aad talahaan dhalinyartaasi
u siin lahaa oon halkan uga dirayaa hadal waxba ma qabto, saasaan yeelaynaa iyo saasaan yeeli doonaa iyo qorshahaasaan bedelaynaa iyo waan qaadacnay macna ma samayso. haddii dad isbedel diyaar u ah aad tihiin, dad inay bulshadan iyo ummadooda ay u danqadaan oo wax isbedel ku keenaan ay yihiin aad tihiin, go-aankiina iyo qorshahaad qaadateen oo anigu aan arkay arrin maad garanaysaa haddii uu isbedel keenayo saliim ah, waan soo dhaweynayaa. inta kale waxaan inagu leenahay sideedaba haddaan nahay dhalinyarta gobolka Afdheer fikrad gaaban, fikradaas oo ah kala qaybsanaan. go-aan qof ma gaari karo. sidaad ogtihiin gobolada deegaanka iyo meel kastaba dhalinyarteeda ayaa dhista, dhalinyarteeda ayaa u fikirta, dhalinyarteeda ayaa u dhiidhida. dhalinyartu waa laf dhabarta bulshada. dhalinyartu waa go-aanka meesha ka go-do. dhalinyartu waa horumarka iyo mustaqbalka jiilka wax bedeli lahaa weeyaan. su-aasheenan aan ka doodayno waxaa weeyaan, dhalinyarta gobolka Afdheer ee sheegtay inay qaadacday shirkii xisbigii BB ama xisbigii barwaaqo, waxay isbedelo soo kordhinaysaa. waa qodobkan gorfayn doono. ma noqon doonaa kacdoonka ama banaanbaxyadii kala duwanaa ee 2019 ka dhacay gobolka Afdheer oo kale ma horseedi karaa haddii arrintani dhalinyartii go-aanka qaadatay ay noqoto mid go-aankeeda ku adkaysa. iyo qodobka u dambeeya oo ah ma la dhihi karaa waqtiga arrintan ay ku soo aaday ayaa ah waqti xasaasi ah, waqti bulshadu bulshada loo baahan yahay. bulshadu waqtiga loo baahnaa ayay ku soo aaday ma la dhihi karaa. marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qodobadaas ayaan gorfayn doonaa. soo dhawaada mar kale saaxiibayaal, qalbi furan ku soo dhawaada. waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa dhalinyarta isku dayday ama fikirkooda codkooda kor u qaaday in ay iyagu tabanayaan, waxay tabanayaan ay soo bandhigi karaan oo bulshada usoo bandhigi karaan, bulshada ay matalayaan ay usoo bandhigi karaan. aad baan usoo dhaweynayaa. qodobkeena koobaad waxaa weeyaan dhalinyarta qaadacday, dhalinyarta gobolka Afdheer ee qaadacday xisbiga barwaaqo ama xisbiga BB wuxuu lagu jiro waqtigii ololaha doorashada ama doorashada. maxaa isbedelo keeni karaa? qodobkaas haddii aan gorfeyno aniga nuur ahaan waxay ila tahay isbedel muhiim inay keeni karaan. sababtoo ah dhalinyartu saan hore u sheegay waa meesha go-aanka ka go-o, waa dadka loo baahan yahay weeyaan. dadka ayaga loo baahan yahay waxtarkooda, waxqabadkooda, fikirkooda. dadka dhalinyarta waa dad loo baahan yahay waaye. waxaanu arkaa haddii ay tahay arrintaasi arrin ay ka go-an tahay oo sida aan ku aqaani jiray dhalinyarta gobolka Afdheer iyo dhalinyarteenaba dad fikir gaaban oo meel low ka fikira aan hayn, waxbay bedeli karaan, isbedel way keeni karaan. fikirka isaga ee dhalinyartaasi ay ku qaateen jigjiga haddii dhalinyarta gobolka Afdheer ay la qabaan ee kuwii magaalooyinka joogay hoose ay la qabaan fikirkaasi oo fikir ay isku xidhan yihiin, ama BB ha guuleysto ama ONLF ha guuleysto ama garanaysaa xisbiyada kale ee tartamay ha guuleystaan, waxaan dhihi karaa waa fursad, waa chance, waa fursad ugu muhiimsan oo bulshadeenna ku badbaadin karo weeyaan. fursadda ugu muhiimsan ee bulshadeenna ku badbaadin karo waxa lagu jiro waqtiga ololaha doorashada, waqtiga oo ma garanaysaa xisbiyo fara badan oo ka tirsan deegaanka ay tartamayaan. waa waqtiga ay inagu ismuujin lahayn weeyaan, waqtiga dadkiina kor u qaadi lahaydeen weeyaan, waqtigii bulshadiina tabaalaysaneed aragteen, bulshadiina
alxamdulilaahi hadda meelo badan iyo roob ka daayay saan xogta ku hayo oo waa la qaboobay. haddii ramadaan inta ka dhiman lagu sii jiri lahaa waqtiga adkaa, bal tusaale sidee xaaladdu noqon lahayd? sidee bay xaaladdu noqon lahayd? waxaa weeyaan dadkiina u fikira, dhalinyartoy dadkiina u fikira, ummaddiina maad garanaysaa mustaqbalkeeda ka fikira. danihiina gaarka ah ha eeganina, danihiina dhowdhow oon magaranaysaa qoto dheer iyo macno sii dheer lahayn ha eeganina, ee waxaad eegtaan bulshadiina, ummaddiina tabaalaysan, hooyada la-aanta ugu dhimanaysa baadiyaha, hooyada oonka meel cidla ugu dhimanaysa, hooyada wada la-aanta magaranaysaa ambalaasti lagu sii qaado meel la mariyo aan la helin. arrintaas u fikira. waxaan talahaan idinku soo jeedinayaa dhalinyarta gobolka Afdheer dhammaan, fikir saliima ood xaalad uu gobolka Afdheer ku jira aad ku bedeli kartaan inaad la timaadaan. aynu rahaantayda wax kasta iyo fikir kasta iyo wax kasta oo magaranaysaa go-aamadiina iyo qorshooyinkiina muhiimka ah ku taageeri karo ama ku garab istaagi karo, ama fikir ha ahaato ama talo ha ahaato, wax kastaba oo bulshadaasi lagu samata bixin karo horumar la-aantu la degtay ee xaaladdan arkay kullan, aad baan diyaar oo lahay. waxaan ogahay runta horta laskama qariyo. Afdheer marka la yidhaahdo, haddii cid wax ka qorta ay tahay oo social media la wadaagto oo bulshada xaaladaha ku sugan tahay sideed u soo bandhigto, aniga intaan ogahay 2 nin baan ayaan si toos u garanayaa. danihiina gaarka, daniha ummadda iyo bulshadiina ka hormariya. haddii aan ku labadaas nin ma magacaabayo, dhalinyarta gobolka Afdheer way ogtahay. labadan is danaystayaal ha noqonina, wayna ogayna danaystayaal tihiin. waan ogahay idinka dadka kaliya ee arrimaha bulshadan iyo xaaladeeda ka hadla ayaa tihiin. waxaana tihiin dad dadtooda dhowrta. waxaa tihiin kii maalin shaxaad siiya maalinka dambe soo amaana. waa idin ogahay. yaa fikirkaas wax laguma bedelo. sidaan shalay rabay bay maanta saan rabay bay noqon weyday, waxba laguma bedelo. ninka dhalinyarta isagoos og inuu yahay hogaamiyihii berrito, isagoos og inuu yahay jiilka loo baahnaa, isagoos og u yahay samata bixi bulshadiisa, ayaa loo baahan inuu go-aankiisa kor u qaado. go-aankiisa inuu meel ahaado oo go-aan adag oon isbedbedelaynin inuu lahaado. mowqif uu ka aaminsan yahay bulshadiisa si ku samata bixin lahaa ayaa loo baahan inuu qaato. qodobka labaad waxaa weeyaan maxay soo kordhinaysaa arrintani ay dhalinyartu ku dhawaaqeen? ana waxaan u arkaa, mar horena waan sheegay, haddii arrintaasi ayn ahayn laablakac, aysan ahayn fikir dhow oo meel dhow ka hadlaaya, aysan ahayn fikir ku eg jigjiga, aysan ahayn fikir dhalinyaro yar oo magaranaysaa danahooda gaarka ka dhex arki waaya xisbigaas hadda talada hay, ayn ahayn dhalinyartu fikir ay ka midaysanin uu yahay, wax weyn bay bedeli karaan. anigu xisbina mucaaradku mihi, xisbina muxaafid oo mihi, isku mid ayay yihiin xisbiyada deegaanka tartamaya. waxaan rabaa ummadda, shacabkayga, hooyooyinkayga, odayaasha rafaasan, xaaladda dadka adag, xaaladda adag dadka ku jira, dad 5 sano ee soo socota isbedel ka keeni karaan u baahanayni. waxaan aaminsanahay fikirka inaad ila qabtaan. 5 sano ee soo socota dadka biyo la-aanta iyo wada la-aanta iyo garanaysaa iyo caafimaad la-aanta iyo xaaladaha adag ku nool, 5 sano ee soo socota insha Allah dadka bedeli lahaa ayaan diyaar u ahay inaan ugu doono. haddaad dhalinyarta tihiin, go-aamadiina go-aamo midho dhala oo waxtara oo ummadda iyo bulshada aad ka dhex muuqataan wax u qabanaya ha noqdo. anuu aad baan u arkaa fikirkan hadduu fikir dhaba yahay oo go-aan dhaba yahay, macno weyn uu ku fadhiyaa, wax weyn uu keeni karaa.
wax weyn oo isbedel weyn laga heli karaa sida aniga ila tahay waaye fikirka aad qaadateen waxaan ilaahay ku adkaysta fikir macna dhala oo midho dhala noqda magaranaysaa ha noqdo fikir aad u midaysan tihiin oo qofka danihiisa gaarka ka dhex arki waayo dowladda uusan ka hadlaynin ha noqdo shalada dowladda shaqaynaysa maanta ka shaqaynin danahada gaarka dad ka dhex arki weyday dowladda mucaaradin danahada gaarka waxaa ka muhiimsan danta muhiimka ah ee bulshada iyo ummadda aad ku matalayso nin dhalinyaro tahay hogaamiye beriya tahay bulshadan iyo hooyooyinkan xaaladan tabaalaysan dadka isbedelkeeda ka fikri lahaa baa tahay fikradda dhow ee idinka haddaad ka dhex arkaysan xaaladiina magaranaysa dantiina gaarka aadiina ka dhex arkin ay tahay waxba kuma bedelaysaan qodobka u dambeeya waxaa weeyaan ma la dhihi karaa waqti muhiim ah ama waqti xasaasi ah ayaa fikraddan kusoo aaday haa walba iska hadda socotaba xaaladii doorashada waqti muhiim ayay kusoo aaday waqti bulshada fikradda la aaminsan yahay fikradda muhiima laga dhaadhicin karaya kusoo aaday waqti loo sheegi karo bulshada cidda waxqabadkeeda iyo horumarkeeda iyo wadala-aanteeda iyo biyo-la-aanteeda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ka samata bixinaysa ayay kusoo aaday waxaana dhihi lahaa go-aamadiina kuwa midho dhala ha noqdaan insha allah kuway guulaystaan waa idiin rajeynayaa laakiin haddii arrintaas ay tahay arrin ninka iska dhex arki waaye danihiisa kaarka uu ka hadlaayo ma soo dhaweynayo waxaan soo dhaweynayaa mid ah nin ka fikirayo hooyada meesha cidlada intay ku umusho ku dhigbaxaysa nin waxaan ka hadlaya ka fikirayo hooyada wadada la-aanta iyo horumar la-aanka iyo biyo la-aanta gobolka ka jirta nin arrintaasi si wadaniyeed leh ooga fikiraya ayaan ka hadlayaa ku danihiisa gaarka maanta hadduu ka dhex arki waayo dowladda soo taagay ma rabo taasan ilaahay u midooba aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbood iga daawanaysaana waxaan ilaahay mar labaad ramadaan kariim jimco mubaarak aad iyo aad baan idiin salaamaya waxaan idinka codsanayaa si qalbiga idinka codsanayaa haddii aad janalka ku cusub tahay inaad subscribe saarto like saarto videogana sii share garayso janalkan uu cusub yahay waxaan insha allah cid kasta oo soomaaliyeed oo luqadan ku hadlaya fahmaysa aan ka codsanayaa in ay ka qayb qaataan sida uu janalkani horumar u gaari lahaa uu isbedel u gaari lahaa sida aan jecel lahay iyo waxaan rabnay iyo halkaan rabnay aan u gaari lahayn aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin oo isku duuban waxaan ilaahay jimco mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu